waxaan rabaa maanta waxbaan ugu wada taagan waxaasu waxay yihiin dhammaanteenna inta meeshaan fadhido iyo inta guryaha looga soo tagayba inaan u jihaysano inaan ka shaqayno dhanka ammaanka mise maahan maanta waxaan ugu daran dhammaanteen waa inaan ammaanka ka shaqayno waxaan hubaa inta hadday ammaanka muqdisho ka shaqeeyaan ciidan hataa uma baahna mise maahan inta waxaa shaki leh laba qof oo hal guri ka soo wada baxday ma jirto inta ninba guri buu ka soo baxay soo maahan tiradeenu intay la eg tahay inta hadday ammaanka ka shaqaynayaan wixii dadkan baabi'inayo ummadda baabi'inaya ay soo sheegayaan ay soo qabanayaan ma dhici karto ammaan darro oo halista inay magaaladan ka dhacdo insha Allah waan hubaa dhammaanteen inaan u jihaysannahay ammaanka inaan ka wada shaqayno si aan u baabi'ino cid kastoo ummadeena dhibayso marka taasna waa kelimada aan ka dhahayo dhanka ammaanka waad ogtihiinoo nabi ibraahim baa calayhi salaam markuu u duceeyey markuu yidhi rabbi ijcal hada albalada aaminan wuxuu ka bilaabay rabbi ijcal hada albalada aaminan buu horta ka bilaabay beledkan ilaahow ammaan ka dhig buu yidhi ammaan buu ilaahay u bariyey kadib buu yidhi warzuqhu min athamaraat kadib buu yidhi moogtahay kadib uu arsaaq u dalbaye markii hore wuxuu u dalbay ammaan ilaahay inuu siiyo ammaan haddaan la haysan arsaaqdu wax ay tahay male waa isboobaya waa la isdhacaya waa la isbaabi'inaya marka ammaankaas isagan inaan ka wada shaqayno waad ogtihiin hadda waddanka wuxuu galay in ay iska dhiciyaan dadkan balaayada noqday ay iska dhiciyaanay bilaabeen shabaab iyo wixii la mida waad ogtihiinoo hadda gobollada oo dhan waxaa ka bilowday howlgallo la isaga dhicinayo bal ma aragteen qof dadkii aan waxba u haynin isaga oo ceelasha ka duminayo oo guryaha ka duminayo oo baabi'inayo aan waxba u ogolayn taas markay dawladdu go'aansatay inay iska dhiciso waxaa runtii dowr fiican ka qaatay ballanna qaaday inay ka qaadanayaan gabdhaha taas aad baan ugu mahad celinaynaa intay ka qayb qaateen wasiiradda gabdhahay hogaaminaysay gabdhaha banaadir iyo dhammaantooda waxaan rajaynay waan aragnay hadda meelaha ay ka socdaan iska xuraynta ay ka socoto gabdhaha waxay la daba taagnaayeen biyo iyo caano iyo hilib bay ciidanku la daba taagnaayeen taasna waxaan rajaynaynaa inaad sii wadi doontaan